Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما قرنا يكوي أي صوها وارا يا ملاينا إن شاء الله مركز صوق شو حد يشك تاي إنه عادي هاي عدكو إنه سنة عادي هين أنت بيجيك العضي وأنا كم هالسنتاي طبعا وانا اردي ربا ميلان اوردا لكن waxaan jeclahay in xaqiiqada aan ka hadlo shalayto daraad waxa dhacday dabageed ninka la yiraahdo ina magaalada lagu soo kubaareeyay ninka la leeyahay oo Jarnaal Xuud magaalada uu soo galay markuu magaalada Jarnaal Xuud soo galay oo magaaladii dhahday oo wuxuu rabay iyo dantiisii uu ka dhameystay ayaa maaragtay oo ka laabtay ayaa kuwii isku sheega hir shabeel ama jinni shabeel ama hirig shabeel saad u taqaanid ama fa shabeel saad u taqaanidba anu magacyo badan aan u bixiyay ayaa wixii yaraayo magaalada joogay oo booliis ay qorteen iyo kuwa yaraayo militariga ayaa la yiri ninkii waa tagay taagna looma haaye intuu magaalada gudihiisa ku jiro bal dugayo dhigto dhigo banaanka ka warrama banaanka u baxeen kuwa yaraayo ciidanka oo loo diray magaalada afkeedaba meel airportka geeska xaq ka jirto oo uu dheeraynba intay tageen duq yar oo iska guureysay oo iska reebaadiyaheedo ciideedii meel ku furatay oo arigii yarada saa u foofisay ayaa waxa dhacday in intay ku ciidamada la diray intay dul tageen sokortii iyo digsiyaashii iyo caleentii inay ka soo qaateen ri abeera oo caadi aan ahayn markaad aragtaa diyaabayso ma sha Allah oo leedahayna inay hore u soo dhufteen ay u keeneen ninkii magaalada joogay saldhiga ay keeneen ay yiraaheen Jarnaal Xuuda ka soo qaadnay digsiyaashan iyo kistaan sokora iyo rida oo meel ugu xirneed haday ogow waa ay ka hoos bixin duqdi meesha degtay oo arigeeda foofsatay waa xoga yar oo riyaahuna ay meesha ku hareen joogeen ayaa sokortii iyo maaragtay ridi laga soo dhufsaday waa arinta aad iyo aad aniga maaragtay aan la yaabay ilaa hadda ama maskaxdeeda aan isleeyahay wariyo maxay ku dhacday qisada nimankan ma xoolaha islaameed inay qaataan ayaa markuu Jarnaal Xuud magaalada soo galayba way iska dhici waayeen sababta hadda intay baxeen ri islaameed iyo sokor iyo digsiyaal iyo jelmado ay u soo qaateen maxay tahay u yireen Jarnaal Xuud ayaa ka soo qaadanay ogow sida shacabku u burinayaan ee ama shacabku u dhacayaan waxa way dadka reebaadiyana ma nabadgelinayaan midda kale waxaba ku baraarugayba aniga in leeyahay ninkan anu maalin walba aan garabka ku sito leeyahay dadkoo dhibe war dhaaf war ka har war ilaahay ka baq inuu sanaba ahayn cid lagu sheegayo oo ka soo jeedo waxa iyo ceelbuur iyo galaareeri inuu ka soo jeedo laakiin muqori uu ku dhashtay laakiin aabihi uu ku yimid iyo awowgii dhinaca iyo xagga naga jirto muqori maxaa la yiraahdaa ceelbuur iyo dhulka inuu ka soo jeedo laakiin ku dhalmaashoobay xasidnimadu heerkay gaarsiisan tahay in badan baaritaan badan sameeyay meelo badan la hadlay wax badan ayo waqti badan ayaan geliyay waa ila noqo waysay waan ka joogi waayay waa ku sii socday dad kale tan la xiriiri meelo badan galay hoostrigiisa daba dib u soo aqriyay wallahi oo billahi tala wax xaqiiqo reebelad weyno waa xaqiiqo ninkaasu wuxuu ka soo jeedaa asalkiisa ama gobolka burburiyo u daaya aba ka taga laakiin asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa wabxa iyo ceelbuur iyo galhareeri laakiin uu ku dhalmaashoobay meesha ninana marka aan dhiigi dadka lahayn ama dadkiisa u naxariisanaynin adigu marka dhibaato kugu sameeyna hadad xaqiiqsatay dhibaato kugu sameeyna dhibaato miyuu kugu sameey karaa ma kugu sameey karaa waa inaad iska dhicisaa midda kale cid oo u taliyaa uma jirta ninkan asi umba on dadka dhibaatada la soo doontay oo xakun iska jecel hadda sirtii maadaama ay hesheen inuu sanan ninkan uu meesha uu dhalan oo sanan shaqo ku lahayn oo reeyiraan ahayn oo nin aabihi meel kale ka soo jeeday yahay waxaad meesha maanta u fiirsataan ka bacdi waxaan u arkaa qalad inay tahay hadalkaas waa xaqiiqo dadkana dhaxgala ila soo ogaada balse aanu xaqiiqadan fartayda saaraya balse aanu nimankan waxaan u soo jeedi lahay beled weyne joogo oo Hirshabeelle soo dirsatay baliis ana idin baryaaya waliba jalmadaha soo qaadateen iyo sokorta aduqda ka soo qaadateen iyo caleenta duqda reebaadiyaha ka soo qaadateen
rida aad soo dhegaysateen walaalayaalow u celiya duqdu way ooynaysaa waa hooyo Soomaaliyeed meel bay abaar ugu soo guurtay meel yaroo maaragtay isleedahay waa doog ayay soo degtay oo urteeday furatay arigeeda ayadoo bixinaysa dhinac ka gasheen ridi ugu abeersaneeda ka soo qaadateen maanta ceebta kaaga daran hadana nin askari ah isku soo sawiray dhaca waba isku soo sawiriyay ridi oo hadana isku soo saldigi balad weyn oo ri ay soo xadeen ayay hadana isku soo sawireen ceeb ka weyn ma jirto walaalayaal ilaahay ka baqa ceeb ka weyn ma jirto ceeb ka weyn ma jirto taas darraad ri aad soo xadeen jiraal cuuda raadinayna ka daba tagayna jalmada ka soo qaado duq islaameed iyo sokorti iyo caleenti kisti bariiska ay karsanaysay ridiina hore ugu soo wado maantayna isku soo sawir taas aqli galmay noqonaysaa walaalayaal wax socona ma hore xoolaha islaameed iska celi hooy iska celi xoolaha islaameed iska celi wabxa iyo ceelboor iyo galhareerina aad meeshaas aad ka soo jeedaaniyo kama soo jiidid beledweyne iyo shaqo ku malid moqori iyo maxaas iyo shaqo ku malid saaxiib iyo buulaburti iyo jalalaqsi iyo wax shaqo ku leedahay meel hostirigaaga dambe waa soo ogaanay anaga waxa tahay oo dhab anaga ku soo ogaanay banaanka soo dhigaynaa midda kale dawladda Soomaaliya way u dhamaatay madaxweynihii jaa xilligiisii mar hore uu liqay oo kala yaacna wadanka sida saxda ah madaxweynuhu markuu dhaco militariga maamulo military maanta la isku aamini karaa ma jiro nin kasta waa qabiil nin kasta waranka la isku haysta nin aaminaya ma jiro gobolka Hiiraan dadkii jooga waa inay isku tashtaan cayayaankan xunka ay soo dul degayn waa inay iska kicisaan war barnaamijka markuu idin soo gaaro kii hore uu iga xumaaday dabcan waraasay aragtaa adii qofkaaga halo هذا عدك أوكي سوما عدك أوكي هدوي هاي وأوكي يصغر أروح حكى الله برنامج غير أنت عدك أوكي مية أخرى يعني يصغر عدك أوكي مية مسه اوكي ثانك يو ما سنتهاي قدر معلن ادي هذا وما سنتهاي انا marka waxa idin sheegaya dadka reer Hiiraan waa dad gobol leh waa dad dhaqan soo jireen leh waa dad ixtiraam leh waa dad inay kala xishoodaan leh laakiin ninkan aan xishoonaynin maashi xishoodka lagu bari lahaa oo ka soo jeediya asiga waa wabxo iyo ceelbuur iyo galhareeri hala geeyo ilaahay aad ugu dhaarshay gobolkan shaqo kuma laha uma dhalan ana wallahi sirteeda siinaayo uma dhalan waayo hadoo dhiig xawaadle inuu ninka lahayn arka wariyada dhiig xawaadle inuu lahayn arka horaan u sheegay imise kaliya soo duubay aniga oo yiri wariyada wallahi ninkan inuu dhiig xawaadle lahayn ninkan jixijixay oo walaalo aqoon oo waarid aqoon oo sukeeye ana aqoonin oo ana aqoonin birmageyda ana aqoonin wariya naga ma dhalanaadii dhahay وري أنا والله مال دير وحكي فيريا أقسم بالله مال دير وحكي إنت وحول بإنت أنا فالين كهر أنا كفكرة أنا أنت أنا فالين كهر أيا كفكرة ما أنا كعب سنايو ما أنا كعب سنايو عد دير عد جاون أيا نوجش هيجا وحويا ويجينا أنا قف بالأدنى أصلا كنا فلا أو خبر سجال بلاد كوكا دسيدي دوكلا كم عبسنين أنا أفكارتي إذا أنا سيتا وجهها نكان عمر دلان قبل كان gabdhaha uurka la xirxiraayo gabdhaha masaakiinta oo marna inta la xiray maalintii dabadana xabsiga lagu celiyay bal nin xishoonaya haduu yahay islaan uur la buu xiri lahayd horta nin raga wax walba ninka raga uu iska difaaci karaa xabsi geli jukay aday ku taala ninka raga waa ka soo kabsana laakiin gabar oo adoo nin raga mar walba naf حق إلهي أدي جبردو سكيجا مداتين لكن جبرد سومالي وحي عاونات كاغا باهان تهاجرو أدي أدو ورون تهاي وايو مركا نرغا تهاي جبرد وحدي وحكي حيه واينا قرب قبطو ويعني وحي كجرتا إسلام نمضا ما دام اي دومر تهاي اوكي ميشي أدي هيليس اي كاغا باهان دي جبردي مانتي هداد حبس جيسا كورن مد علوشي دي فاضي اهد آد حبس جيسي مد علوشي دي بوحدو حبس جيسي mid ilmeeda ayadu u xamaalanayso oo la og yahay oo aabeed wax ku tarin aad xabsi geysay oo ilmeediina maanta gaajaysiin
hooyo waa yeela mid haysay uurna leh ilmana ka dambeeyaan xabsi geysay kooysta ilaahay ka baq madaxa wadla marka ninka la hadlay waa soo ogay adi ma xawadle matid maya haka yaabin ina tahay cadow waa tahay shasheeya tahay wallahi billahi tallahi ina bay ku sheegeen waxa ka darajo badan maantay waxay yihiin farmaajahaas mariixaanka oo la leeyahay xasad waay wallahi farmaaja ka calool jilca adiga koobka xasidnimada waajibisay sababtoo maba tihid waayo qabiilka kugu tilmaamaba kurtoodba waxay yihiin wada xasidiin koobka xasidnimaday jabsheen habarteeday ka tahay marka walaalow ka caliye waxa waayen burjikadii iyo maqaarkii u noqo wartalow ilaahay ka baqa ninkaan na dhaafiya Soomaaliyana dawladii waa burburtay nin walba gobolkiisa asagu had difaacdo yaana la istagaalay anigu dagaal ma rabo dagaal ma jeceli laakiin waxaan jecelahay wax kasta inay nadiif ay ku socdaan wax kasta nadiif lagu dhaqo ayaan jecelahay nimanka rida soo xaday iyo jalmadaha iyo sokorta walaalayaal celiye jalmadahan iyo sokortahan ha isticmaalina rida abeerta oo ninka booliska oo saldhiga joogay maanta isku soo sawiray celiye mid kale waxa ii sheega barnaamij waxa soo socdo runta ii sheega aniga reer beled weyne inta la shaqaysan nimankaas kulli waan soo saaraya barnaamij kanooniga soo socdo halkaas qof walba ka daawo doontiin qof walba wuxuu yahay inaan banaanka idii soo dhigayo odayaal guryaha idii ugu jiro oo waxa jira la shaqeeya asiga kuwa waxa jira jooharkaas tago oo odayaal oo beled weyne ku noolaa jiro oo nabadoorna iska dhigo ayaga naftigooda nin walba waxa uu yahay iyo waxa uu gudo wallahi ana soo bixinayo banaanka aan idii soo dhigayo waxa idii tusaa wallo barkiinu inaad xagga i jiraan idii tusaaya barkan odayaasha barkoodu waxay la shaqeeyaan nimankaan ay la shaqeeyaan Hirshabeelle laakiin markaad aragto waxay ku leeyihiin kuwaana wallahi aduu kile u nacabahay saayelnahay maandhow saayelnahay been waay maalin reer beled weyne waa soo ognahay ilaahay ka baqay nin beled weyne joogo maanta ama gabar beled weyne joogto magaalada hadday $1 subxi waagu markuu bariyo shaxaada ay raadiso ilaa qorraxu ku dhaco $1 ma lagu soo arkaa shil Soomaali kama shaqeeyo kulli xasaday isku yiin ayaga isnacab nin shilin siinaa ma jiro okay nimankaan marka waxay sameynayaan odayaashu waxay ku soo jiiteen waxa maadaama ay shaqo jirin markuu soo wacay imoba la leeyahay $30 loo dhiibaa $30 soddon biri dowrad arki ma $30 maanta shaxaad lagu siiyay qof beled weyne joog odayaasha dhibka haysta marka waa kaas inta u dhinteen marka inta tirika laga yiraahay dhulkooda iyo ilmahooda uma heelay ilmaha maanta iskuulkii intay tageen kuwan cunka oo jooga beled weyne oo shaydaameynta Hirshabeelle la shaqeeyo iskuulay intay tageen ciyaal ninac iyo wax yar u qaybiyeen macalinkiina $40 ay siiyeen macalin beled weyne jooga $40 la siiyay maxaa u maleynaa bisha dhan oo $50 jooga cirka iyo dhulka la wareega naagta hata hirtimu ku qaadaa la yiri guriga markuu tagay ilaa hadda islaantiisa waa wareersantahay dhimirkaaba maqanba dhakhtarkiina wuxuu taagan yahay maskaxda dhiig ugu furma salaamaa la kulli aanfa $40 adu waalanaysa war bishii $1 ana ku sii kara hata wallahi nacsiyo dhibkaas horta ka dhacay meesha markii ardadii ay sheekadii qabsadeen ay yiraahdeen Hirshabeelle doonayna Hirshabeelle dhalinyaraba luuqyaha ugu jirtayo nin walbaba dhagax iyo toorey waa la wada daqray iyo dhiig ka ducaa waa arkayseen oo malayna ayo dhiig ka ducaa waa arkayseen warnimakaas cid rabtaa uma jirto war anigu waan idin sheegay ha ku hingoobinaa meesha mid kale ninkan xawaadlow wallahi alcadiin anigu adii dhaartay ciddu ku gargarka yahay ama aabihiisna ku gargarka ahay way noo qariyeen wayna og yihiin haddana warkayga anigu waa fashilay adiga hore u sii gudagalo wax soo ogaada ninkan iska bixiya midkan kaleeto oo dhahayay horta niyo habar kasto khayr Allah siiyo wiil bay dhashaa laakiin wiilkay dhashay meel dhakhtar la hadday joogto oo checking lagu soo sameeyo waa la kala ogaana wiil iyo gabar inay sido laakiin markii la yiraahdo wiila sida way iska alaasgeysaysaa way iska qoslaysaa ilaa wiil iska rabtaa marta aniga moogta ma is dheheen waniyo kanu makii loo baahnaaya makii tolkiisa difaaci lahaaya war makii codkarka ahaaya war makii lagu liibaani lahaaya oo noo shaqeey lahaaya ma dhehina waxa waay qulubta wiila dhalay ku sababta waxa ugu maaha
mid kan la shaqeeya dabageedoo daraad hadlaay wuxuu yidhi alla qosolkiisa bis horta qofku inuu doqon yahay mogta qosolkiisa bisaa baa ka kasaa kuye ma ogtihiin horta hadda ka hor 9 bilood aan jaqda ku jirnay haddana ina 9 bilood jaqdana loo celiyo ma rabtiin cawadow kuye beerka caara ku goys abartii ku dhashay horta jannada Allah geey inta adduunyada inoo shaayna ilaahay adduunyada caafimaad ha ku siiyo laakiin wallahi oo billahi oo tallahi ee bay ku sheegay noocaadoo kale waxa lagu sameeyaa laba jawaan inta la isku tolo oo dhinac laga soo geliyo oo afka looga xiro oo xarigna dhaxda sirib looga siiyo xarigaas waxa lagu sii sameeyaa dhagaxna lagu sii xiro webiga lagu ridaa ilaa marka webiga gashid saado kor ugu soo foocino dhagaxo hoos kugu jiido kaasoo kala hadana nagu jiro cuugaasoo kala nagu jiro hadana raggii caaway reer beled weyne oo la yaqiinay oo ana yani walaalow iicun iyo ma aday kugu roontay iicun yaqiinay caawen dadkan intii ka yimid caado qaatayaasha wallahi beled weyne waa la iiga dambeeyay wallahi waa la iiga dambeeyay aw dadkii markay dagaalamaan hatee beledweyne markii xoog lagu soo galo wallahi iyadoo la baahan yahay magaalada inta la qabsado dagaal ka dhaca iyadoo la baahan yahay qolo la yiraahdo qafar marjac oo waxa jirta inta xoog ku soo galaan markii xoog ku soo galaan ayagoo baahan 3 iyo 2 geed qoona haday kor taagan yihiin xabad qoona haday soo dhacday 3 yihiin mida soo qabana walaalo weecun warmay adaa baahan jabka gooso warmay wallahi adaa iga daranay warkii kale loo dhiiba war iyo gooso markii waxay ku heshiinaan okay wax xabad qoona 4 geesayna leedahay inta laga gooso kar inta laga nin walba dhinaca ka goosto wixii caawe mucjiso ay ugu dhacday dadkii gobtu dhashahay intay idiga aadeen oo wax tala iyo tawfiiq keeni jiray ilaahay ayaa kugu dhaarshay ninana gobolka u dhalan oo dhugata qabo marka dhaxda aniga shug naga soo siiseen intay aadeen wixii balaayiya afarta kooro shuruga looga beeray haddaad ogtiin hadii kale mid aad igu daraaya xawaadlo haddaad ogtiin hadii kale mid aad igu daraaya wuu beled weyne dhinacyasiisa oo dhan shuruga ku duugan adikana la idigu shurgada xawaadlo qabuuraha beled weyne banaanka iyo duuba xigta markii la aado qabuuraha ku yaalna uqsuma billaahi alcadiin shurug adika leeday u tala galay ayaa lagu wada duugo haddaad ogtiin hadii kaleba iska soo bixiyo shurugaas inay heshiisaan haddaa rabtiinka webiga jinkiisa ku jiro iyo kan qabuuraha ku jiroba iska soo bixiyo anay runta iyo sirta fartaan iska saaraya dhabarkiina la isku soo jeediyay saa inaad u sheekaysataan waa la diiday saas tala inaad ku heshiisaan waa la diiday sababtoo dadka lagu soo shurgado hata leeday dhax keenay waxa kamid ah dabageeda kamid ah dadka lagu soo shurgaday oo leeday dhax keenay wallahi dabageeda kamid ah haddaad ogtiin hadii kalaba dhabarkiina la isku soo jeedsay saas awal waa iska hore ma jirteen qabiilooyinka kala Soomaaliya waxayna dhihi jireen ma taqaani dhalinyarada xawaadle maxay afar iyo 5 iyo maxay u wada socdaan waxa dhihi jirnay waa siday isku jecel yihiin hadda waa kaas laba xawaadla labada isla dhalatay hada gurgu iska lama baxaan ma is rabaan habarteeda ka tahay talo ku meeshiinaan afarta kuwii u soo jireen mar hore u dambeysay sababtoo duudkiina la soo xijiyay kan hadda dadkii xirxiraayo oo cidda jalmadaha ka soo qaatay ridana soo xaday sokorta iyo caleentana ka soo qaatay bariiskana duqda ka soo qaatay oo hadda cili leeyahay oo saldhiga beled weyne maanta ridi la isku soo sawirayo jalmadii iyo sokortiina ay meesha yaaliin ay yiraaheen jaranaal xuudan ka soo qaadanay duq maskiin oo owr meel ku furato ciddi meel ku furato arag iska daajinayso ka soo qaateen raashinka kuwaysta kaasa kamida kuwa shuruga leedigu soo dhiibay iyo kuwa leedigu soo shurgaday kuwaasa kamid ah sababtoo ah hiiraan abarteeda ka tahay shaqo ma kulaha ninkaas wax walbo oo ama shurugana waa loo soo dhiiba wax wiil kasto xawaadla oo la tooganayana ii soo fiiri hadii la yiraahdo hallo xaqaas uu taagan yahay jaanis aad haysataa uu leeyahay habarteeda ka tahay ani nadiifa ahay ma jecli wiil in adeerkeeya ama tolkayga ah inuu dhibaato gaarto ma ogoli aniga abadan habarteeda ka tahay si daciifnimo in lagu dilo ma rabo wiil Soomaali oo dhan hatee in la dilo wallahi ma baahni aniga sababtoo intii la dili karo Soomaali hore way isku soo dishay hadda marka Soomaali ma taagnaba kuwa ka dhashtay taagan tahay kuwa ka dhashtay ayay taagan tahay oo soo tolreerkayga ahay oo buddigayga ahay ayaan tala siinaa talada oday ma jirto oday waa lugooyo oday waa jalfi socoto dhalinyaroy tashta
dhulkan adika iskale odaygan wuxuu noqday duq wuxuu ka naxaa male oday hadduu duq noqdaan waxaan ogaaday lacag sii maahane inuusan wax kala lahayn habarteeda ka tahay aduu hilibna u soo gad lacagna sii aabasaa tahay dhe meelihiisa nabadoon ha ka noqdo laakiin dhallinyaroy waddanka adika u soo haraayo adika ilmo dhalaayo ilmihiina haddana sii haraayo waddankan qabsada maantay adika ayaa leh waddankan awal odayaasha lagu hiro jiray hadda laakiin oday lagu hirtaa uma jiro habarteeday ka tahay wallaahi in oday lagu hirtaa uusana jirin adeerka haata waa lugooyo aabbaha waa lugooyo abtiga waa lugooyo dhallinyarada dirbiyaasha fadhiso bulaasha dirbiyaasha u fadhisi gobolkana adika lacag ka soo saara karo oo shaqo abuuro karo gobolkana adika maamulo karo Soomaaliya isla degantiin gobolka mush adika kaligiin inay leedahiin aniga runtii ugu imaada waa ugu badanahay laakiin dad nala leh dadka nala leh isdhaxgalka bulshada waa caadi way yani dad yaqaana waaye sida loo wada ganacsado sida loo heshiiyo sida la isku dhaxmaro sida wanaag loo sameeyo way yaqaaneen hiiraan balaaya kama taagno oo isdhaxgalka dadka degan ah la jaan qaado talada la wareega balaaya had ugu dhacday damale balaayadana tuuriyo ku bixiya waa iska bixi kartiin wariyada tuuriyo iskaga baxsha ma saa iska meesha fashilkiisa aba taagan oo ninkan wuxuu ka soo jeedaa wabxay iyo galhareeriyo ka soo jeedaa iyo ceelbuur uu ka soo jeedaa dadku uu saarku u yahay oo ku gargarka yahay waa noo qariyeene balse waa fashilaye walaalayaal adika say waxa wadin yaa runta ma ka wada hadlayna mise beenta ka wada hadlayna horta beenta haya cadaaw aday ka dabi mane aduu kaalay way maanta been sheeg birina ku qaraabtag no ma soconayso laasim way kugu soo noqonaysaa ora barnaamijka sheer gareeya Soomaali weeyday siiba kombowda la hadlaa ku leeyahay kombowda ama jicibka ama baa jaqabta cuurka la ku yiraahdo barnaamijka sheer gareeya ar wallahi adika adiga danayna maane hataa anu hiireen idiga imaada hataa ma barababa dar xumadiina iyo qaab daradiina ma barraba in idin soo egstaaga wallahi billahi tullah da Soomaaliya iimaan ahaatay been ma ku sheegay kismaayo iyo waxaan daga afraxa weyna barana bay iyo bakool aan badaga budhu badha ama baranaaba sababta adika islu goyna dad la deganaa karaba ma tihiinba dad la deganaa karaba ma tihiinba walaalayaal marka dhulku iska qaada dhalinyaro ay kaca adu ku tashta manashaqooda dhulkan adika iskale war adika say wallahi Falastiin caadiya la diga dhigana wallahi Falastiin abay dhaantabe kuwa muslimka ay kuwa yahuudo dhagax fiir kuwa yahuudo waxay haystaan diyaarado wiilasha muslimka ana wallahi inay qoray haysan dhagax ay ku dagaalamaa guulo waaweyn inay ka soo hooya kuwaysta ninka xunka ah ma ida ag fadhiyo aad fiirsanaysiin waad ballamaysiin markaas aad waxa leedahay Hirshabeelle ma rabnoy maali kala darab Hirshabeelle ma rabnoy laba leediga dhaawacan saddex dad waa leediga xira waraqadka gobonimo ama u dhinta ama gobonimo isku xuraya ama iska daaya Hirshabeelle raaca ninkan ka soo jeeda wabxana hadii taliyo ninka wabxa ka shaqeeya hadii taliyo dhaafa Ali Guudlaawana hadii taliyo dhaafa aysan ahayn kala baxnaa kitaabaha bariiso ku kala baxa beledweyne xayta waxaan maalin walba canuga lug laga jabshay gabara la xiray maxay taa waxaas nabadoora u sii socdo saldhigo dad soo tuuga xayta waxaas adduunka taga jira ay sheega adduunka taga jira waxaas waraa isfashisheenayo anigana jiiraabina maalin walba idalama hadli karo adikuna wax qabsamaysiin aniga ha jiiraabina ama dadkii caadiga ah oo la yaqiin oo nuuxsanayo yoomaayo waxna wax iska dhihi karay waxna wax ku ridi karay talana qaada jiray noqda oo jid leedigu soo agaagay yeesha ama daaya ninkan wabxaya ceelbuur ka soo jeedaa hadda ka horba 4 jeer oo ii soo noqday oo ogolaadeene haadii taliyo Ali Guudlaawana haadii taliyo aysan ahayn walaalayaal talada wax ka bedela oo bariisan ninkan iyo wixii xunka waardiyeenayo bariis iska bixiy
أنا والله وجهي كلا ديم هاي وجهي كلا ديها أو مجرته واس بلانسنا يناي ومظاهرات يناي حيتا ما وحاس أنا ما هنيو أضو ما أنت مظاهرات عادي حتى كلوين تحبط له وصرفت إيه كلا في عن أضو ما أنت قاعد جاري أو يرين ما كانوا بلد كلية الجنامان أو كسر ناوعمي أو كم حسي والله وكلا في عين وحكلا في عواي إلا بركات كم حسو جو دقينا كسر عنيسا وهذا كرتا وحد دونتات سماي كرتا حبرت هذه كتاع لكن هذا عاشونكو أديناتين عاشونكو أدين آتين غير بلد وينو عاشونكو أديناتين عاشونكو أدينا أنا والله كما هلو وايقد انت قفكو عاشونكو أدينا دون نقضو بس وايقد من عني حبرت هذه كتاع رأي النظام كان وحكا بدلا دضو وانا عيسان كشفنا أنت قلنا والله يالو نظام كان وحكا بدلا نظام كان وحكا بدلا نما كان أما إسكاب بحية أما الداية بلد كودة أول بوكو قلالو فاينو وحي رباني سمينا يعني حسان هادي يقو قلالو فاينو لابد وجي لي ماذا إنا تسكاب بحسان إنا كو قبطي قدر على بوالا قاطا إنا تسان كو قاطا labadaas wiji la imaado adduunku waa kuraajo didiisa kuraajo waa adduunku waa kuraajo hadaad kuraajo lahayn wiliga horumarna gaari maysid meelna kama baxaysid abarteeda ka tahay barnaamijkan share gareeya wixii waad ii sheegay aniga cidii danaynaysay barnaamijkan share garay asxaabta kale u gudbi meelaha kale ku kala turtuura waxa weeye maalmaha soo socda dawladda yiraahdo barnaamij waxa idin keeni doona kanuuni ah kan ka daran ad ku xirnaa doontiin xiisay doontiin insha Allah taala dad waraysi aan ka qaadayo dadkan maaragtay odayaasha ah oo anaga waxa ku jirnaa saan intana waa ku jira kulli waa imaana waa soo saara meel walba barnaamijku weynaa doona insha Allah taala barnaamijyada xiisay doontiin iyo kuwa adag ka helina intaba waa isku juri doonaan marka barnaamijkan share gareeya waxa diiga tagaa insha Allah taala hiiraan oo guuleysatay iyo General Xuud oo guuleystay asina magaalada uu ka talinayo ayaan idin rajaynaa insha Allah taala intaan idin tigin ka hor waxa idin sheegaa adduunyada nafta meel loo soo jiray ilaaha duko عباديسو إلهينا كبق نبينا كسلي اللهم صل على سلام عليكم